siyaasi Cabdi Maxamuud Sarinley oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubbaland waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Kismaayo. soo dhaweynta siyaasiga kadib ayaa waxaa wafdiga loo dhaadhiciyay hoyga ay ka deglayeen magaalada Kismaayo halkaas oo kulan ay saxaafaddu dibadjoogkeed uu kula qaatay duubka dhaqanka iyo siyaasiyiin ka tirsan maamul goboleedka Jubbaland. kulamadaas ay wada qaateen kadib ayaa waxa uu siyaasiga bahda warbaahinta uga warbixiyay waxa uu ku saabsanaa sodaalkiisa waxaana uu sheegay in maatankiisa uu ku qotomay sidii nabadda looga wada shaqayn lahaa isla markaasina bulshadu ay isu dhaxgali lahayd. maamulkan hadda Jubbaland wuxuu noqday mid taabagalay oo dib loo habeeyay oo hadda madax ka yahay walaalkeen Axmed Madoobe nabadii iyo xasiloonidii iyo markaas wixii aan ku fakarayay oo dhanba alxamdulillah maanta taabagashay waana tilaabo aad horumar u leh oo loo riyaaqi kara ka soo baxday. aniga markaan imaadayna nabadda inaan sii xoojino odayaasha waa saragnay dhaqanka siyaasiyiinta waxgaradka bashiray ugaaska waa wada shirnay waa wada hadalnay qolooyin iska cabanayay bulsho meel iskugu timid ama maamul ama hay'ad dawladeed oo buuq laga waaya male iyo cabasho iska jirta wixii ayagana waa badi waa ka wada hadalnay ugaaska siyaasiyiinta waxgaradka إن شاء الله تعالى وحي مالك أنت سكبرنا إن شاء الله وحدونا إن عرضنا مدحوينها iyo مسؤولين maamulkana waa arki doonaa aniga marka socodkayga qaabkaas oo ahaa. Cabdi Maxamuud Cabdi Sarinley ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka labada aqal ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ee xilligan ka soconayo magaalada Kismaayo isagoona sheegay in ay jiraan beelo Soomaaliyeed oo ku dulman doorashadaasi isla markaasina aan laga qayb galinin waxaana uu sheegay in arrimahaas uu kala hadli doono mas'uuliyiinta ugu sarreeya maamul goboleedka Jubbaland. haddii aan u soo noqdo nidaamkan hadda la samaynayo oo doorashooyinka 2016 way jiraan qabaa'ilo badan oo dulman oo ilaa dhowr iyo 10 sano dulman runtii kuwa ayaga ana insha Allah waxaan rajaynaynaa in madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta maamulka iska aragno iyo UN-ka iyo hay'adaha maaragtay nabadda iyo dimuqraadiyadda ka shaqeeyo waayo qabaa'ilo badan ayaa waxa la leeyahay waxna ma dooran karaan lamana dooran karo taasna waa mid ka hor imaanayso islaamnimada dimuqraadiyadda iyo bulshada qaabka nabad u wada noolaanshaha waxaana hadda abuurmi karo in waxaan ay khatar dhaliyaan waxaanan leenahay in doorashooyinkan hadda la sameeyay ay noqdaan kuwa ku dhisan cadaalad oo boobka iyo xaqiraadda iyo dulmiga insha Allah maartay la yareeyo qabiiladii horay u boobayna ay iska dhaafaan oo kuwa aan waxba helin dhanka cadaaladda ay ka aadaan waana madaxweynaha maamulka Axmed uu ka hadla arrimahaas marar badan وانا رجينها مدام احمد ويهنين علماء وحق iyo aad u garanayo fariimaha hadda naga soo gaargaarayana oo maartay leeyahay wax la dulmin kara male xaqa iyo cadaaladda ayay wax walba ku soconayaan insha Allah ta'ala safarka hadda uu maqan yahay markuu imaadana waa sarkayna. ugu dambeyn siyaasi Cabdi Maxamuud Cabdi Sarinley ayaa bulshada reer Jubbaland ugu baaqay inay beerahooda fashaan isla markaasina ay muujiyaan isdhaxgalka bulshada iyo waliba horumarinta dhinaca nabadgelyada. bulshada waxaan ugu baaqayaa dib kasta oo soo marteen alxamdulillah hadda waa fiicanta xaaladihiina inaad shaqeysaan inaad beeraha tabcataan inaad ganacsiga aadaan in dulmiga iyo dhibaatada la yareeyo in dilka iyo dhaca iyo boobka iyo musuqmaasuqna la iska dhaafo nidaamka cadaaliga ahna guulo iyo barwaaqo iyo horumar lagu heli karaa waxaan rajaynayaa nabadda inaad ka qayb qaadataan wixii dhib qabana ay waxooda qoraal ku soo gudbisadaan sida adduunka kale ama shakhsi ha ahaado ama koox ha ahaato ama qabiil ha ahaado. Maxamed Qaasim Cali Waxar TV caalamiga Star magaalada Kismaayo.